waa maxay the pronouns, maxaa loo isticmaalaa, imse pronoun ayaa jira. Intaasi in ka badan casharkeen maanta ayaan ka hadli doonaa. Bismillaahi Rahmaani Rahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada casharkeen labaad ee English tutorial. Casharkan maanta waxaa ka hadli doonaa mowduuc muhiim ah, waxaana waaye the pronouns. Marka casharkan waxaan ku bilaabaynaa anagoo fiirinayna labada example oo nagu qoran sabuuradda. Okay. Number 1, Sammy came to the class. Sammy wuxuu imaaday galaaska. Isla jumladii Sammy was happy. Sammy wuxuu ahaa happy, uu faraxsanaa. Number 2, Selma has a cat. Selma waxay haysataa bisad. Isla jumladii wada taaganaha the cat is beautiful. Bisada way qurxoon tahay. Marka haddaan fiirino labada example waxaa arki karnaa inay ku jiraan kelmado oo laba jeer lasoo mention gareeyay ama laba jeer lasoo sheegay. Number 1, Sammy inta Sammy ku jira, isla jumladii Sammy mar kale magacii ayaa laba jeer ku jira. Okay, marka number 1 waxa waaye Sammy and Sammy. Okay. Number 2, Selma has a cat. Selma haysataa bisad. Cat. The cat is beautiful. Marka the cat. Marka bisada ayaa laba jeer lasoo sheegay. Laakiin dadka sidaas ma sameeyaan oo magacayaasha kuma soo celceliyaan. Waxay u isticmaalaan waxa loo yaqaano the pronouns. Marka pronounka wuxuu noqonayaa kelmad ee soo gasha booska magaca. Number 1, Sammy came to the class. Waxaa ognahay ka hadlayna qof la dhaho Sammy. Sammy came to the class. Sammy wuxuu imaaday galaaskii. Isla qofka ka hadlayna Sammy was happy. Sammy uu faraxsanaa. Sammy marka akhrino waxaa dareemi karnaa inuu qofkii ahaa wiil. Marka looma baahna Sammy ina marka labaad lagu soo celiyo ee waxaa lasoo gelin karaa booskiisii pronounka ee loo isticmaalo wiilasha. Maxaa waayena nimanka pronounka loo isticmaalo waxaa waaye he. Marka jumladda waxay noqonaysaa Sammy came to the class. Sammy wuxuu imaaday galaaska. He was happy. Asaga wuxuu ahaa happy, uu faraxsanaa. Mid labaad, Selma has a cat. Selma has a cat. Selma waxay haysataa bisad. Marka bisada ka hadlaynaa the cat is beautiful. Bisada way qurxoon tahay. Marka waa ognahay bisad ka hadlayno. The cat marka la dhaho looma baahna ee waxaa la dhahayaa pronoun loo isticmaalo. Pronounka loo isticmaalo xayawaanaadka maxaa waayena waxaa waaye it. Marka inta waxaan soo gelinaynaa it. Marka pronoun waxaa waaye kelmad ee soo gasho booska magaca. Haddaan fiirino definitionka ee pronounka wuxuu sheegayaa inuu yahay a pronoun is a word. Pronounka waxaa waaye kelmad that replaces a noun ee soo gasho booska magaca. Haddaan u gudubno qaybaha pronouns-ga waxaa arki karnaa inay u qaybsan yihiin dhowr nooc. Waxaanu ka arki karnaa jadwalkan inta noogu sawiran. Marka waxay leeyihiin singular iyo plural. Number 1, singular waxaa waaye marka loo isticmaalo hal qof keliya oo mufrad waaye. Plural waxaa waaye jamciga oo loo isticmaalo laba qof ama waxa ka badan. Waxaa kaloo leeyihiin first person, second person iyo third person. First person waxaa waaye aniga qofka hadlaya. Wuxuuna leeyahay singular iyo plural. Singularka oo first personka waxaa waaye I. Singularka waxaa waaye I waa aniga markaa keligay ahaa. Haddaa laba qof iyo dheeraadna ahaa, haddaa jamcna ahaa waxaa waaye we. Anaga. Aniga haddaa badanna waxaa waaye anaga. Second person waxaa waaye you, adiga. Haddaa hal qof tahaa you, hadday badan yihiin sidoo kale waxaa waaye you. Marka ma isbedesho. You waxaa waaye singular, sidoo kale waxaa waaye plural. Third person. Third person waxaa waaye qof saddexaad. For example, asaga ama ayada he or she. Marka third person waxaa waaye he, asaga, she, ayada, it oo loo isticmaalo waxaan nooleyn ama xayawaanka loo isticmaali karo. Jamcigana waxaa la dhahaa they, ayaga. Marka first person waxaa waaye aniga ama anaga. Second person waxaa waaye adiga ama adinka. Third person waxaa waaye asaga, ayada ama ayaga. casharkan maanta intaas ka eegyaha waxaan rajeynayaa inuu fududaa fahanteen. Waxaan u ballanaa xalqad soo socota insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.